Asxaabta karaal noqda fiidiyowga wuu dheeraaday laakiin muhiim waaye inaad dhammaysatiin. Isku daya inaad dhammaysatiin. Thank you. Bismillah, assalaamu calaykum. Waa idin salaam asxaabta meel walbaa joogtiin. Kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. Maanta waa soo laabtay another video insha Allah. Fiidiyowgan wuxuu daba socdaa fiidiyowgii hore oo saliidda aan soo gelinayay. Sababtoo ah waxaa ka imaaday su'aalo badan iyo maxaa la dhahaye waxaa ka imaaday su'aal badan marka waxaa rabaa gabdhihii su'aalaha isoo weydiiyeen inaan uga jawaabo. aada u mahadsantihiin asxaabta kulligiin intii su'aal isoo weydiisay, intii luuqa iisoo gashay, intii productigayga i weydiisay meesha laga helo, kulligiin aada idinka mahadcelinaa. intii i weydiisay wixii ra'yi ah kulligiin waa idiin mahadcelinaa. inta maxaa la dhahaa subscribe-ka ii saarteen aada u mahadsantihiin. subscribe badanaa helay, maxaa la dhahaa maasha Allah dad badanaa arkay, maxaa la dhahay aada ugu faraxsanahay inaad dad badan helay. aadaan u mahadsantihiin asxaabta. insha Allah ana waxaa rabaa inaan idinka jawaabo wixii markaas aan ogahay iyo wixii sida u baxayaan ay yihiin. insha Allah maanta waxaa idin tusaa beebiyadeyda, idin tusaa beebiyada yar waaye. she's 5 now, hadda 5 ay jirtaa. soo timaheeda idin tusaaya ayadana iyo timaheeda sida u koriyay iyo waxay ahaayeen. tin kasta horta ciladay qabtaa. timo baxaynina jira saa usoo sheegay iyo timo baxayaan iyo waxa lagu sameeyo iyo waxyaalaha u fiican. marka maanta waxaa rabaa inaan sameeyo waxyaalaha ugu horeeyo oo la isoo weydiiyey waxaa ka mid ah tinta salka kasoo siibmanayso iyo tinta keligeed soo daadanayso oo go-eyso, timaha agoolka leh iyo timaha maxaa la dhahaye ilmaha yaryarka. maadaama intaas dhan la isoo weydiiyey maxaa rabaa inaan idin tuso. aan ka bilaabo timaha ilmaha yaryarka, maadaama ilmaha yaryarka ay leeyihiin xaqa koobaad oo priority-ga la siinayo. maxaa rabaa inaan siiyo priority gabdhaha isoo weydiiyey ilmaha yaryarka timahooda. timayaasha kalena waa usoo laabanayna insha Allah. okay, saa ujeediin hadda beebiyadeyda waa ujeediin meeshan tinteeda wax yar way ka babanaan tahay cause baby hair ay haysataa. weli way soo baxayaan weli way soo baxayaan. marka waxa waaye tinteedana ma dheero, way yar tahay. timaheeda aaday u yaryihiin, ma dheero. saa ujeediin intaas waaye. maxay dhaafayaan qoorta hoosteeda lay dhaafayaan. soo timaha cunugtan timaha baxa ma ahayn. haddaa idiin sheego cunug kasta noocuu ku dhashtaa, cunug kasta qaab uu leeyahay. haddana waa kasa maasha Allah tinteeda aaday u fiican tahay. way u baxaysaa si fiican oo u baxaysaa ayaamahan dambe. soo waxyaalaha aa ka bedela iyo waxyaalaha ku sameeyay aa rabaa inaan la qaybsado gabdhaha ilmaha yaryarka haystaan oo 2 sano jiraan. soo maxaa u baahan tahay cunugaaga hadduu yar yahay oo tinta u baxaynin inaad timihiisa always massage u samaysid. first thing iyo main thing waxaa waaye cunuga timihiisa massage inaad ku samaysid. cunuga madaxiisa inaad massage garaysid, aad saliid ku massage garaysid. okay, saliiddaa ku massage garaynaysa beebiyaasha ilmaha waa kanaa. saliiddaana ugu fiican baby oil, Johnson baby oil. timaada ku masaajidid oo beebiyaalka aada u fiican tahay. marka saa u isticmaalaynaa saliiddan insha Allah asxaabta ila socda. saliiddan maxaa u isticmaalaynaa saa u jeedin waa furay. maxaa soo qaadanaya dhaladan emptiga soo qaadanaya. sorry asxaabta telefoon ay soo galay. dhalada emptiga waa soo qaatay. baby Johnson oilkan waa kanaa. saliiddan waxaa u samaysanaysaa ilmaha yaryarka ah. cunugaaga hadduu baby yariis yahay oo timihiisa ay baxaynin, saliidda ugu fiican oo ilmaha saana u samaynaysaa midda koobaad insha Allah. baby Johnson meeshaasoo ku shubnay waa ujeedin wax yaraa ku shubay. dan maxaa soo qaadanaysaa arandikatel. waxa waaye castor oilna aada u fiican tahay. I hope inaad magaceeda ujeediin. aaday timaha ilmaha u korisaa iyo timaha dadka waaweyn. marka saliiddan iyo saliiddan isku dareynaa. wax yaraa ku daraysaa 2 qaado camal iyo 2 qaado adi in isla egaa ka dhigaysaa. okay, maxaa kaloo u baahan tahay asxaabta? waxaa kaloo u baahan tahay beebiga timihiisa maadaama aan korinayno almond oil, sweet almond oil aa haystaa. aada u fiican yahay almondiga. timahana aada u bixiyaa. faa'iidadiisa maba ka sheekeyn kari. haddaa dhow waa ka hadlaa maxaa la dhahaye asiga waqtiga dhan u qaadanaa.
insha allah asaga waa ka hadlaynaa gooni. soo 3 saliida isku daray, dan waa isku mixi garaynaysaa, waa xiraysaa. waa ujeedin waxay noqotay bubbles caday samaynaysaa cause castor oil iyo baby oilka markii la isku daro saanay noqdaan. so insha allah I hope ina ujeedin saliid way isku qasmatay. maxaa ku sameynaynaa biyo qandac ayaa dhex gelinaynaa, biyo kuleel ayaa dhex gelinaynaa. soo qaadanaya biyo kuleel insha allah ila socda asxaabta. kana asxaabta marka waxa soo qaatay baaquliga saxadka soo qaatay, soo biyaha soo kululeystay. soo ujeedin biyaha aad u qiiqayaan, wax yar la uga baahan tahay. soo haddana waxaa dhex gelinaynaa saliidii, waa kasaa. marka wax yaraa ku dhaafaysaa ilaa uu ka qandaco saliidda ay kululaato. kadib cunugta madaxeeda ugu masaajeynaa beebiga. waa sugaynaa marka videoga dheeraanayo, markay soo qandacda kasoo bixina. waa kana asxaabta waa soo kuleeyay saliidii, hadda qandac waaye. haddana maxaa sameynaynaa timaha ku masaajeynaa oo beebiga. maxaa rabaa inaan u sameeyo oilina rabaa inaan u sameeyo timaha zaa'id inaa saliid uga buuxisid waaye. haddaa u qabeynaysid cunuga sida ugu fiican oo timaha ay u baxayaan oilina ku sameynaya. tintana markay 2 beri markaa dhaqda camal 1 maalin 2 maalin ka hor aa u sameynaysaa oilinka ilmaha laftooda oo nadiif isay u qaadato saliidda. soo hadda oilina rabaa inaan u sameeyo saliidda wax yar qandac waaye, laakiin saliid kuleel cunuga u marinin, iskalbiga ka gubanayo. kaasa oilin badana u sameynaya insha allah. zaa'idaa saliidda uga buuxinaysaa cunuga si oo timaha ay u helaan oilin nafaqo u helaan ee lafta u gasho. I hope ina aragtiin wax badana ku shubay timaha ina saliid saan ugu shubtid wuxuu kaa caawinayaa siisiibka, waxay kaa caawinaysaa timaha oo go-ayaan. markaa tinta waa ujeedin saliid waxaa uga dhigay biyo uga dhigay zaa'ida ugu shubay. intay ugu xanaaqin ay helaydan aan tinta u sameeyo cunugtaan sida tinta loogu sameynaa waa iska kixi hadday rabtano. waa daalayaan ilmaha hadda waxbaa ku mashquuliyey, laakiin I hope inay ugu xanaaqin ba iga tegin. soo baakay ilmaha in la mashquuliyo maahana ma fadhinayaan, inay cayaaraan ay rabaan maanta dhan. mama yes. okay thank you you're helping me just sit down thank you okay waa mahadsan tahay hayde. soo waa kaasaa timaheedii lafta waa ujeedin beebiga laftiisa sas inay saliid gacmahayga I hope inaa ujeedin ignore the thing like yellowga haldiga aada u isticmaalnaa. soo waa kay timaheeda soo oily waaye. marka timaha cunug markaa saan ka dhigtid aada u baxaya maasha allah. oily aa ku samaysid kadibna aa u shalaysid kadibna saana ku dhaafaysaa. ilmaha madaxooda bacma lagu xiri karo aaday u yaryihiin, waa ku dhaafaysaa. hadday rabaan meeshay seexanayaan maro kale ka aadin kartaa, waa ku seexin kartaa. haddaa rabtid fast hair growth inay tinta dhaqso uu u koro cunuga uu timo culays timo wuxuu yeelanaa thick ah. qof yar iyo qof weynbo timaha haddaa masaaj ku samaysid timaha waxaa bixinaya masaajka, siisiibkana ka joojinaya masaajka. insha allah step by step uga soo hadlaya waxyaalaha u fiican, waxyaalo badanaa jira timaha. kadibna waa shaleyneynaa. afkaas hore tinta haddaa ka waxaysid u dheeraanaya.
teeda kale waxaa fiican cunug kasta inuu shanlo gooni uu leeyahay, qof kasta, qof yar iyo qof weyn, shanlada inay gooni ahaato separate. Shanlada, taabalka, waxyaalahaas dhan waxyaalaha separate-ka ah ku fiican waaye oo hygiene-ka. marka waxaa fiican in shanlada haddii kale la dhaqo, labada cunug isla isticmaalayaan in laga dhaqo shanlada, ama qof kasta shanladiisa. meelaha dhan shanlooyin badan inaad gelgelisid oo qof kasta shanladiisa oo haduu isticmaalo, ama adaaba u hagaajinaysid oo like you use one comb qofkii hal shalo. hadda beebidan waa ujeedin tinteeda waxaasa kasoo go-een, like 2 xabo tina soo go-day. laasim hal xabo 2 xabo tin wax dhib ma lahan. waxaa badan daran abaayada idhahaysa timaha zaa-id ay usoo daadanayan gacanta haddii la geliyo. xaaladaas camal waa isoo martay. insha allah daayetkaaga inaad saxdid waaye, cuntadaada inaad saxdid waaye. waxyaalaha u fiican oo dhanka cuntadana waa kasoo hadli doonaa. waa kaasaa beebida ayada tima sas u dheer ma qabto, cause timaheeda ma bixi jirin bo, to be honest tinteeda ma bixi jirin. anoo la yaaban ah cunug kale waxaa arkay Russian ah oo Pakistan iyo Russian iska dhal ah oo ayada la eg oo timaheeda bixeen. so ilmaha timahooda qaar islooli u baxayaana jiraan oo markay dhashtaan basaxiirka hadday yihiin timo fiican ay yeelanayaan. ilmaha basaxiir ku dhashta waaye timo fiican ay yeeshtaan, tartiibeena tintooda u kortaa. ilmaha timaha ku dhashtaan hadhow tintooda way halaabaysaa. saasay u badan tahay ilmaha. ilmayaasha badana waxay ku dhashtaan timo eber. ani ilmahayga timo eber ay ku dhashtaan badana. soo anoo bala yaabana waxaa la dhahay wax caadi ah waaye, as familkooda iyo dadkooda wax caadi ka ah waaye. soo marka waa kaasaa hadda timihii oilina ku sameeyey. I think gacanteeda dhan oilina ka dareemoosin. soo waa kaasaa shaambada u isticmaalaysid beebiyaashana waxa ugu fiican baby shampoo oo Johnson ama noocay rabta ahaato. ani Johnson isticmaali jiray iyo Cases mid la dhahayo. tan hadda waa haystaa maxaa ku sameynayna pedicure iyo manicure. soo baby shampooda madaxa xitaa waa lagu dhaqaayay. baby shampoo waa fiican. shaambada kale oo ayadana bestiga ilmaha u ah Head and Shoulders itchy scalp iyo haystaa. qofkii oo haddaa ka dareento cunuga inay timaha cuncunayaan uu ku dhaho lafta ay cuncunayso ama aragtid agool, itchy scalp ay usoo qaadaysaa 1 week gudihiisa way caawinaysaa. shaambadan aada u fiicanta ayadana. shaambooyinka isticmaalna idin tusaa asxaabta. shaambadana aada u fiican tahay. mar hore anoo ka hadlayo soo geliyey way iga dhamaatay. coconut oil ku jirto, aada u fiican tahay shaambadan ayadana. Garnier productigan waaye ayada conditionkeeda. shaambada kale oo ayadana best ah waxa waaye Pantene. aada loo yaqaanaa shaambadan, aada u fiican tahay. repair product waaye, repair ku sameysaa timaha iyo moisturize. hadda kan waxa waaye conditioner waaye. shaambadiisa waa kana 3 in 1 condition shampoo, conditioner plus treatment ya ku jira. classic cleaner clean I don't know clean so si fiican u nadiifinee. waxa waaye shine siine iyo normal mixed hair. timaha caadiga waaye all the kind of hair. marka aada u fiican tahay Pantene qofkii heli karo. haddaa heli karina Head and Shoulder ama shaambo ukun bas ka samaysan oo eggs ah. ilmaha madaxooda haddaa rabta inaad nafaqaysid only waxaa marinaysaa egg yolk, ukunta oo jaalaha anoo sameynaa waa idin tusaa insha allah. hal video wax kasta ma lagu soo koobi karo. asxaabta isoo weydiisay su-aalaha aada u mahadsantihiin. su-aalihiina intii hadda kasoo jawaabay waa kaasa, inta kalena waa idinka soo jawaabayaa. abaayada timaha aadka uga sii siibanayaan. abaayada maxaa la dhahaye tinta gacanta soo raacayso. messageyaashiina inaan akhriyo waaye, inuu videoga dheeraadana ma rabo. insha allah
timaha koley saana loo hagaajiyaa. Hadda beebiyada waa kasoo u dhameyna timihii maasha allah way ku seexanay caawa saana ku dhaafaa subaxii u qabeynaa. marka waxaa rabaa inaan akhriyo masajayaashii abaayooyinka isoo direen maxaa la dhahaye timaha kasoo hadal ay dhaheen. abaayada u horeysa maxaa la dhahaa aamina ibraahim maxaa dhahday maasha allah tabaaraka allah xabiibti ilaahay gacantaha ku barakeeyo aniga timahayga jileec saa'id waaye wayna dheer yihiin laakiin ma badno khafiif waaye maxaa tinta badinayso please isoo jawaab. okay maxay dhahday abaayadan tinteeda khafiif waaye wixii tinta badinay u baahan tahay wuu dhaadheer yahay waana jileec maasha allah. tinta maxaa kuu badinayo castor oil waxyaala aa cunay sidaa soo gelina insha allah almond oil iyo mask madaxa oo dabiici ah guriga ku sameysan doono. marka masaaj ku samee saliid kuleel timaha qandac masaaj ku samee oo maxaa la dhahaye mustard oil iyo custard oil ama almond oil iyo custard oil labada saliid ama coconut any saliid aa haysatid custard oil ku mixi garee abaayo insha allah I hope inaad timo qurux badan heli doontid. maintain dietka waaye dietka kasoo hadlaya insha allah. abaayo kale muxuu dhahee maxaa la dhahaa sagal maxamed maxay dhahday assalaamu calaykum abaayo sidee timaha iku dheeraan karaa timaha daadanaya maxaa lagu sameeyaa abaayo maxaa waaye maxay dhahday timaha dheerdheer maxaa ku dheereen karaa timahayga tinta daadanaya maxaa lagu sameyn karaa. tinta daadanayso asagana cuntada qaybtiisa uga soo hadlayna oo ku istaajinayso. I had that problem waa qabi jiray maxaa la dhahaye tinta daadanayso castor oil almond oil coconut oil waxyaalahaas u fiican iyo hair mask aa sameyn doono qasil ku jiro waa kasoo hadlaa asagana. bad maxaa ku dadaashaa timahaaga inaa masaaj ku sameysid skalbiga masaaj ku sameysid. abaayada kale muxuu dhahay maxaa la dhahaa Caisha Cusmaan oo ku salaamaa kulligii waa idin salaamaa. saliida sida u sameysay af soomaaliga sida u samaysate inoo sheeg abaayo noo faa'iiday bilis noo sheeg tinkii oo saliidka si u suubisay abaayo saliidyaal badana suubiyaa saliid ku anfacaysa insha allah waa soo suubina waa soo gelina. hadda 3 saliida beebiga u suubiyey taas xataa adi waa isticmaali kartaa custard oil almond oil coconut oil waa isku dari kartaa. almondka wax yar u badinaysaa timaha ku masaajeysa waa kululeynaysaa tintaada isbedel badana ku arkaysaa insha allah. videoga inuu dheeraado ma rabo. abaayayaal kale muxuu dhahay okay abaayadan maxay dhahday rameyna moxamed abaayo waa mahadsan tahay maxaa xabadooda ama dumdum sorry asxaabta soomaaligayga waa qalad duma maaldahaasi dumududa ani af soomaaliga weligay ma maqlin dumucdooda soo cesho dumucda isoo sheega asxaabta dumucda maxaa waaye soo cesho quruxdooda miyaa mise nafaqeyntooda kaas iigu soo celi ma fahmin I'm sorry laakiin tinta bilicdeeda iyo dhumuc maal dhahaa asi ma aqaan waxa soo celinayo waxa waaye oilin timaha oilin haddaa ku samaysid way ku soo noqonayaan cuntada aa cunaysidna inaa iska saxdiin waaye insha allah. aada umahadsantiin asxaabta insha allah. see the next video waxyaalaha kale idinku soo sheegi doonaa kana raali ahaada haddaa daaho waxaa u daahaya ani hooyo ahay maxaa la dhahay wax kasta ana isugayaan ilmahayga aabahood ma ila joogo back to school waaye uniform shopping waxaase sameynayo oo iskuulka u laabanayna karaal noqda intaa soo daahayna. aada umahadsantiin jazaakum allah khair insha allah. see you the next video bye assalaamu calaykum.